بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii aad baan u faraxsannahay maanta qof kasta Soomaaliyeedna uu arkay uu dareemaya waxa halka maanta ka socda. Tanna waxa weeye jaaliyadii Soomaaliyeed oo halkaas ku timid hal qof isku keenay runtii oo ka shaqeeyay muddadii yaraa oo loo magacaabay habeenii maalin meel ka soo aadi jiray. Abubakar ahaan wuxuu nagu soo booqday jaaliyadeeni iyo xafladeeni ugu yaraan 10 mar dhinac kasta noo fadhiisanay. wuxuu ku imaaneen ma ahayn inuu yiraahdo wax dana wuxuu ka sheekeynay danta ummadda Soomaaliyeed. runtii waxa weeye asagoon gaari lahayn asoo lugeynaya asigoo bas la socda ayuu shaqada qabtay. muddada yar uu qabtayna waad arkaysaan. shaqadu qabtay waxa kamid ah tan ugu muhiimsan inuu isku keeno jaaliyad Soomaaliyeed. way isku imaan jiray laakiin maanta uu isku keenay wuxuuna halka keenay walaalaheenii runtii aan aad ugu faraxsanayn arko aan ku arki jiray media Maxamed Mo runtii aad aan u faraxsanahay walaashayna Sabrina Ikram runtii waxyaabo runtii la taaban karo taasina waxa way juhdi uu geliyay safiirkeena muddada yaraa. waxaan codsanayaa hadda safaaradda xirneed 33 sano ay xirneed qofka furay shaqo yar ma aha. waxaan u baahnahay dhamaantiin inaan istaagno aan gacan weyn ku siino aan la shaqeyno sidii safaaradda inuu socon lahayd. qof kastoo Soomaali ah gaar ahaan reer UK way dareemayaan baahidii ka jirtay waddanka. way dareemayaan baahidii ka jirtay ninkii baahidaa sameeyay ay ka furay runtii waxaan u baahanahay in la istaago gacan lagu siiyo loona duceeyo wax kastoo qof kastoo isku daya inuu ninka safiirkeeni iyo consulka tayib runtii oo muddo ay isla socdeen in xoog lagu siiyo khayran u rajeynaa insha Allah. waad mahadsan tahay mudane safiir. waxaana ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer UK inay kula istaagaan. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.